booliiska magaalada Shiin ayaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku soo dhigeen nin 50 jir ah oo lagu tuhmayo in uu mindiyay oo uu torrey la dhacay nin kale oo ay ku wada sugnaayeen guri ku yaala bartamaha magaalada Shiin. Booliiska ayaa sheegay in ay si degdeg ah ku gaareen mid ka mid ah guryaha ku yaala bartamaha magaalada Shiin halkaasoo laga soo wacay laguna wargeliyay in uu ku sugan yahay qof dhaawac xun loogu geystay torrey. Ninka torreyda lagu dhaawacay oo la sheegay in dhaawiciisu uu aad u cuslaa ayaa lagu soo waramayaa in loo qaaday isbitaalka magaalada Shiin halkaasoo lagula tacaalayo laguna dabiibayo. Booliiska ayaa sheegay in ay gurigaasi ka soo qabteen nin 50 jir ah oo lagu soo oogay in uu ka dambeeyay falkan torreeynta ah ee loo geystay ninkan oo la sheegay in dhaawiciisu uu aad u cuslaa goobo badanna laga dardaray torreyda. Inkastoo ay boolisku sheegeen in dhaawacyada culus iyo goobaha kala duwan ee torreyda laga dardaray ninkaas, haddana ay xaaladdu ahayn mid naftiisa halis ay ku jirto. Ninkan 50 jirka ah ayaa lagu soo waramayaa in hadda xabsiga loo taxaabay, waxayna booliiska magaalada Shiin bilaabeen baaritaano xoogan oo ku saabsan dhacdadan ka dhacday mid ka mid ah guryaha ku yaala bartamaha magaalada Shiin. Wuxuuna taliyaha howlgallada booliiska koonfur bari ee dalka Norway Feger Daawe ku waramayaa in ay hadda baaritaano aad u xoogan ka hayaan kiiskan, isagoo sheegay in ay baaritaan xoogan ka sameeyeen guriga ay dhacdadan ka dhacday iyo sidoo kale waraysiyo ay la yeesheen dadkii goobta ka agdhawaa. Wuxuuna intaa ku daray in ay wax badan ka weydiinayaan ninkan 50 jirka ah ee lagu tuhmayo in uu falkan torreeynta ah ka dambeeyay. Si taalamida ayuu taliyuhu sheegay in ay waraysan doonaan ninkan dhaawaca loo geystay ee xaaladiisu halista tahay marka uu soo bogsado. Booliiska ayaa waxa uu intaa ku daray in ay hadda kiis ka fureen baaritaano xoogan oo aad u firfircoon iyo dabagal baaxad weyna ay ku hayaan si loo ogaado sababta keentay dhacdadan foosha xun ee ka dhacday guri ka mid ah guryaha ku yaala bartamaha magaalada Shiin. Halka warka kiisa ugu door karoon oo idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.